السلام الله عليكم isku soo noqod wanaagsan waxaan filayaa inaad caafimaad qabtaan casharkeeni labaad ee maadadeena medical parasitology-ga aynu qaadan doonaa maantada tani casharkeeni hore hadaynu ku soo barnay introduction-kii casharkeena labaad maanta waxaynu ku baran doonaa protozoa qodobada aynu doonayno maanta casharkeenan inaynu kaga hadalno waxay noqon doonaan saddex qodob oo aad muhiim u ah qodobka koowaad waxa uu noqon doonaa inaynu in badan kaga hadalno waa maxay ama waxyaabaha uu yahay ereyaha meesha laga keenay iyo xog badan oo ku saabsan protozoa qodobka labaad waxa uu noqon doonaa astaamaha uu leeyahay protozoa inaynu wax badan kaga hadalno qodobka ugu dambeeya casharkeena inaynu ku soo afmeeri doono waxa uu noqon doonaa noocyada cudurdhaliyaasha ee soo hoosgala medical parasitology-ga qaasatan qaybtiisa protozoaha maxay yihiin aynu ku baran doonaa insha Allah waxaan rajayn doonaa ilaa dhamaadka casharkani inaad inala socon doontid waliba si taxadar leh insha Allah ugu horeyn hadaynu ku bilowno qaybta overview-ga casharkeena qaybtiisa koowaad ee ah qodobada aynu ugu talagalnay inaynu ku bixino maantada tani qaybtani waxaynu ku baran doonaa ereygaani protozoa erey ahaan halkuu ka mid ugu horeyntii waxaa muhiim ah inaynu bayaanino sidaas darteed marka waxaa muhiim ah inaynu halkani imaano okay ereyga protozoa asal ahaan wuxuu ka yimid luqadda Greek-ga waxaana loo yaqaanaa protozoanis Zonis ayaa loo yaqaanaa oo ay macnaheedu tahay proto iyo zonis proto waxaa loo yaqaanaa waa first ama primary waa first ama primary halka markaynu ka hadlayno zooniskana ay noqoto animals sidaan hadaynu u fiirno marka waxay noqon doontaa waa xayawaanad mid ka mid ah xayawaanadii ugu horeeyay ee la helay okay Greek word way ereygaani waana protozoanis wuxuu kala baxaa first markii proto iyo zooniska loo kala qaybiyo proto waa first ama primary halka markaynu ka hadlayno zooniskana ay tahay animalski waayahay qeexideeda marka aynu galno waa maxay protozoa waxa loo yaqaanaa protozoa markaynu qeexno waxay noqon doontaa waa an organism oo waliba parasitic organism weeyaan markaynu ku hadlayno waa organism kaliya iska maahan waa an parasitic organism kaasoo marka u nool that lives with kaasoo marka la nool a host martigeliye or ama waxa uu noqon karaa mid free living ah mid kaligiisa nool inta badan waxa ay ku nool yihiin marka laga hadlayo kuwa free living ka ah waa aquatic free living waa kuwa ku nool goobaha biyaha ay ku badan yihiin ama goobaha biyaha leh okay waxa aynu baranay marka ereyga meesha uu ka yimid luqad ahaan iyo waxa uu macna ahaan u taagan yahay iyo protozoa waxa ay tahay hadda marka waxaynu gudbeynaa qaybteena labaad ee casharkeena maanta qaybteena labaad waxaynu ku baran doonaa casharkeena maanta wax loo yaqaano astaamaha ama characteristics-ka uu lahaan karo noocani kamid ah parasite ee loo yaqaano protozoa astaamaha uu yeelan karo waa astaamo aad u tiro badan balse waxaynu ku soo koobi doonaa qayb ama waxyaabo ay ugu muhiimsan okay markaynu ka hadlayno astaanta koowaad horta waa iyaga waa they are heterotrophic waa kuwa aan iskuudin karin marka laga hadlayo quudashada ama xayawaanada qaabka ay u quutaan marka laga hadlayo waxa loo qaybiyaa laba nooc oo ay kala ahayd autotrophic iyo heterotrophic midka autotrophic waa mid samaysan kara sida balandiska inta badan bay u badan yihiin ee dhirta iyaga samaysan kara cuntadooda iyo kuwa heterotrophic ah kuwa aan samaysan karin cuntadooda ay ku xiran tahay noolo kale sida bini'aadamiga oo kale iyo qaar kamid ah ilma aragtida oo midkani uu qayb ka yahay okay sidaas darteed marka maadaama uu ku dul nool yahay noolo kale waa inta badan heterotrophic waa mid aan iskuudin karin kaliya cuntadiisa ay ku xiran tahay martigeliyihiisa okay qodobka labaad waxa weeye waa kuwa u nool free living waa kuwa u nool xor xilliyada qaar occasionally ama waxay u noolaan karaan qaab parasitic ah iyagoo ku dul noolaan kara ama ku duljoogi kara marka laga hadlayo noolo kale okay waxa ay leeyihiin marka laga hadlayo astaamahooda waxa ay u jiri karaan ama xataa jirto sida la sheegayo 6500 oo species oo macnaheedu tahay 6500
oo jinsiyadood oo ka mid ah xayawaanada ilma aragtida oo microorganismska ayaa ay leeyihiin marka laga hadlayo qaybtan loo yaqaan protozoa okay waxa kale oo soo galaya marka inuu ka hadlayno in hadaynu ka hadalnay inay heterotrophic yihiin free living inay yihiin inaynu ka hadalnay maadaama ay yihiin waxa kale oo yihiin waa kuwa keenayo pathogenic organisms weeyaan waa most waxaan dhihi karaa most pathogenic organisms microorganismska ka mid ah weeyaan microorganismska ka mid ah weeyaan midda kale astaamihiisa markaynu ka hadlayno waxa ugu muhiimsan inay tahay in uu protozoa yahay single celled organism inuu yahay single celled organism noole ama parasite leh hal unug kaliya ka kooban kaasoo hadda markaynu ka hadlayno wuxuu kaloo leeyahay single celled ama wuxuu leeyahay single celled one wuxuu leeyahay cell membrane wuxuu kaloo leeyahay flexible cell membrane wuxuu leeyahay flexible cell membrane wuxuu leeyahay cell membrane oo flexible oo inta badan ay marka ay ka hadlayaan ama inta badan ay sameynayaan reproduction ka ama reproduce ay wax soo saaraan rabaan ay isbadiyaan inta badan ba ka caawiya waxaynu ku soo koobaynaa marka shantan qodob ayaynu ku soo koobaynaa markaynu ka hadlayno astaamaha uu yeelan karo protozoa waxaan filayaa inaad in badan ka fahantay wax aadan horay u ogeyn aynu gudubno marka qaybta kale qaybta saddexaad hadaynu gudubno casharkeenan labaad ayaynu maadadani parasitology maanta ku baran doono waxa uu noqon doonaa inaynu sheegno types of pathogenic protozoaniska waxyaabaha ama noocyada cudur dhaliyaasha ay ka mid ah protozoaniska ayaynu ka hadli doonaa insha Allah waxa loo qaybiyaa markaynu ka hadlayno marka laba qaybood oo kala ah kuwa major ah iyo kuwa minor ah kuwa majorka iyo minorka marka loo qaybinayo waxay ku xiran tahay locationka ama goobta jirka ka mid ah ay saameynta ku keeni karaan ayaa loo qaybinayaa marka laga hadlayo types of pathogenic parasitology ama protozoa marka laga hadlayo medical parasitology sidaas ayay loo qaybiyaa waxaynu marka gudagali doonaa labadaas qaybood inagoo u fiirin doona marka ama ku saleyn doonaba goobaha jirka iyaga saameeyaan waaya qaybta sida hadda inuu ka hadalnay markaynu ka hadlayno pathogenic protozoaniska noocyadiisa inagoo marka ku saleyn doona qaybaha jirka uu ka saameeyo waxa loo qaybin doonaa labadaas waxay noqon doonaan major pathogenic protozoans iyo minor pathogenic protozoans kuwa keena maxaa la dhahayaa cudurro ama cudur dhalin zaa'id ha keena oo kuwa ugu waaweyn iyo kuwa ugu yaryar kuwa ugu waaweyn marka laga hadlayo waxa ay kala yihiin kuwa ku dhaca intestinal tract waxa loo yaqaanaa intestinal tract protozoa kuwa kale waxa loo yaqaanaa iyagana urogenital ay ku dhacaan xubnaha taranka urogenital protozoa midka saddexaad waxa uu noqon doonaa isagana markaynu ka hadlayno wuxuu noqon doonaa blood and tissue protozoa waaya majorka markaynu ka hadlayno waxa u kala baxaan intestinal tract protozoa oo ah kuwa ku dhaca caloosha kaliya ama waxay ku egyihiin mandhicirada waxaana soo gala ameebaha oo kale iyo jaardiga iyo noocyo badan oo kale waynu kaga hadli doonaa insha Allah markaynu gudagalno urogenital protozoa oo midka ugu caansan uu yahay Trichuris vaginalis midka kalena waxa uu noqon doonaa blood and tissue protozoa oo ay badan yihiin waxa kale oo ka mid ah plasmodium oo kale ayaa ka mid ah iyagana markaynu gudagalno insha Allah ayaan sharxinaa minorka markaynu ka hadlayno isagana anagoo u fiirin doona body locationska uu saameeyo waxa uu u qaybsamaa laba kaliya labadaasi waxa ka imaan doona marka kuwani marka laga reebo midka kani waxay kaliya noqon karaan intestinal protozoa kuwa ayaa soo hoosgala intestinal tract protozoa qaar ayaa soo hoosgala iyagana iyo kuwa waxaa jiro iyagana minorka ka mid ah iyagana saameeya ama ku dhici karaba dhiigii iyo waxay kaloo saameyn karaan nudayaasha jirka waxaa kaloo yaqaanayna blood and tissue protozoa waxaan filayaa marka in qaybtani aad si fiican iskula fahanay iyo qaybihii hore casharkeenan maantaba waxaa halkan inooga casharkeenan maanta aynu ku sharxinay
maadadeena bristology-ga casharkeedii labaad waxaan filayaa in protozoa wax badan aad ka fahantay xisada inoo xigta ama casharka inoo xiga waxa uu ku saabsanaan doonaa qaybtani types of pathogenic protozoans ka qaasatan qaybta majorka ayaynu ku baran doonaa inagoo ka bilaabi doona marka intestinal tract protozoa casharkaas insha Allah waxaan filayaa inaadan ogaan doonin oo aadna qaadan doontaan isbuuca inuu soo aadan bidnillaahi jalla wa ala